ciyaartani waxay ka mid ahayd ciyaarihii ugu adkaa ee soo mara Mark Tyson. Mark Tyson waxaa la ciyaaray nin la yidhaha Botha ama White Buffalo oo u dhashay caddaanka South Africa. ninkani wuxuu la ciyaaray Mark Tyson oo ka soo noqday ganaaxii berigii uu dhegta goostay Evander Holyfield. haddaba isagoo ka faa'iidaysanaya ganaaxa uu ka soo noqday oo haddana doonaya in dib loo ganaaxo ayaa markaas sirwaluhu qabto ee ciyaarta la joojiyay ayuu feer qaldan la dhacay Mark Tyson. wuxuu ka rabaa Mark Tyson inuu xanaaqo oo dib loo ganaaxo kana guusha la siiyo. haddaba Mark Tyson ciyaartan waxay ahayd ciyaartii ugu dulqaadka badnaa uu isxajiyey waanu isxakameeyey. Mark Tyson oo lagu yaqaanay nin aan haadi dulqaad badan lahayn ayaa ciyaartan dulqaad muujiyey. wuxuu gardaraystaba aakhirkii dhammaadkii ciyaarta hal mar ayuu ninkii caddaa ku dhuftay 80 kiilo oo feer ah. jirjir cadka ayaanu ugu tuuray. daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay haddii kalena nagu soo biirsay muuqaalada xiisaha badan leenalka ku soo gudbin inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay.